daawadayaal maanta waxaan idin wadnaa shanta xayawaan ee ugu lixda xayawaan lixda xayawaan ee ugu dabargo'a dhow xayawaanada adduunka. Shanta xayawaan. Xayawaanka ugu horeeya waxa uu noqonayaa nibiriga buluuga. Daawadayaal intaaynan guda gelin casharkeena waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe noo saartaan haddaad nagu cusub tihiin, haddii kalena ay naga jaanqaadaan. Nibiriga buluuga waa xayawaanka ugu weyn adduunka, haddana waxa uu cunaa xayawaano aad u yaryar badda ku nool oo loo yaqaan kriil. Nibiriga waxaa la jilaabanayay muddo aad u dheer. Sanadkii 1960-kii waxa uu nibiriga buluuga ahi ku sigtay inuu dabar go'o. Dadaallo ayaa loo galay sidii loo joojin lahaa jilaabankiisa nibiriga. Waqtigan la joogo waxaa lagu qiyaasay ilaa 5,000 oo keliya oo nibiriga buluuga ah ku jira badweynta. Daawadayaal, xayawaanka labaad ee aan sii gudageli doono waa xayawaanka loo yaqaano jeerta. Xayawaanka loo yaqaano wiyisha. Wiyishu waxa ay ka mid tahay xayawaanada naasleyda ah ee duurjoogta ah kuwooda ugu waaweyn ee weli ku hadhay adduunkan, waxaana ay ka ciyaaraan door muhiim ah habka isku dheelitirka meerto-nololeed. Wiyishu waa caws ku nool, waxa ay cuntaa in ka badan 200 oo nooc oo dhir ah, waxa ayna dhirta ku firdhiyaan dhulka ay maraan. Wiyisha waxa ay ku qaadataa 3 maalmood in ay dheefshiidaan cuntada, sidaa darteed waxaa laga yaabaa in ay dhul aad u kala fog isaga gudbaan inta aanay harin iniinaha dhirta. Waxaa kaliya oo jooga hadda 14,000 oo wiyil ah adduunka, badidooda waxaa lagu ilaaliyaa beeraha xayawaanada ee bariga iyo koonfurta Afrika. Daawadayaal, xayawaanka saddexaad ee aan idiin soo wadno waa xayawaanka baandaha. Waxa uu ku nool yahay dalka Shiinaha kaliya, waxaana khatar ku haya deegaankii uu ku noolaa oo sii baaba'aya iyada oo la ugaarsado. Waxaa lagu qiyaasay in ilaa 1,600 oo keliya baanda ah maanta ku nool yihiin duurjoog ahaan. Daawadayaal, xayawaanka saddexaad ee aan idiin soo wadno waa xayawaanka loo yaqaan shabeelka. Shabeelka waxaa haysta mustaqbal mugdi ku jira. Dhibaatooyin sii kordhaya oo kaga yimid dadka iyo dabeecadda ayaa sababay in sii yaraato tiradiisa. Qarnigii 20-aad waxa uu noqday mid ka mid ah xayawaanada khatarta ugu jira dabar go'a. Sanadkii 1950-kii, shabeelkii ku noolaa agagaarka badda Caspian ayaa dabar go'ay sanadihii u dhaxeeyay 1937 ilaa 1972. Shabeelkii ku noolaa jasiiradaha Bali iyo Java ee dalka Indonesia ayaa dabar go'ay. Daawadayaal, haddaan idiin sii wadno shabeelka, dalka Shiinaha waxaa ku noolaa 30 ilaa 20 shabeel, waxaana ay ku dhow yihiin inay dabar go'aan. Dalka Hindiya waxaa ku nool 3,000 ilaa 4,000, waana dalka ay ku nool yihiin shabeelka ugu badan ee adduunka. Shabeelka adduunka ku hadhay waxaa soo wajahay khataro badan oo kaga yimid yihiin dadka oo ku badanaya deegaankoodii oo baaba'aya, ugaarsi sharci darro ah, dabaysho ay badanayso, ka ganacsiga haragga iyo xubnaha shabeelka ee loo isticmaalo dawo dhaqameed ahaan.
daawadayaal xayawaanka shanaad aan idiin soo wadno waa xayawaanka loo yaqaan qubada. Qubada ama diin-badeedka. Qubada ama diin-badeedku waxa ay ku nooshahay badda waxaanay bannaanka u soo baxdaa kaliya marka ay ku dhalayso beedka xeebaha, kulaalayaasha iyo kuwa ka hooseeya kulaalayaasha. Waxaa jira waxyaabo khatar ku haya nolosheeda, tusaale ahaan waxaa loo ugaadhsadaa hilib ahaan iyo beed ahaan. Qolfoofkeeda oo laga sameeyo findhicil, gadhfeedho iyo wax la mid ah. Daawadayaal xayawaanka saddexaad aan idiin soo wadno waa xayawaanka gorillaha. Xayawaanka lixaad aan idiin soo wadno waa xayawaanka gorillaha. Gorilluhu waxa uu ka mid yahay xayawaanada khatarta ugu weyn ugu jira inay ka dabar go'aan adduunka. Waxaa si weyn u saameysay tobanaan sano oo dagaallada sokeeye oo ka dhacayay Afrikada Dhexe iyo Afrikada Bari, waxaana hadda uu ku silcayaa sababo sii yaraanaysa, waxaana loo ugaadhsadaa hilibkiisa iyada oo laga ganacsanayo daraaddeed, waxaana saameeyay cudurro khatar ah sida Ebola. Tirada gorillaha buurta ee maanta nooli waa 700 oo keliya.